in baasaboorka Somaliland ay ku daraan baasaboorka lagu soo gali karo wadanka gacan ku dhiiglayaasha qof ahaan wuxuu dilay laba mooyaane intii kale ciidamadeena booliisku ku guuleysteen miisaaniyaddii hore waxay dheer tahay 30% haddii la isu geeyo waa 42 يعني وقت امسياشد maanta waddanka u shaqeynaya wiligeed inta halka ma gaadhin 1 milyan iyo 926 oo dollar ah ay gelinayso bugaagta ardadu wax ku barato shaqo ay soo banaanadaan haweenka iyo hablaha aqooyahanka kaalmo gaar ah loo xiro waxaan wax u qaybinay 6998 qoys oo barakacyaala waxaan ilaahay ugu dhaartay 120 maalmood ayaa laga joogaa markii uu mas'uuliyadda la wareegay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaasina uu igmaday xubnaha golihiisa wasiirada markii uu magacaabay kadib ayaa madaxweyne Biixi waxa golihiisa wasiirada dhamaantoodba kulan aqoon isweydaarsiya waxa uu ka furay magaalada Hargeysa halkaas oo iyaga iyo khubaro kala duwani ay maalmo ku la fagurayeen waajibaadka saaran iyo qaabka ay u wajihi lahaayeen sida ugu habsamida fiican waxaana halkaas lagu kala qaatay isfaham ku saabsan waajibaadka xukuumadda laga rabo inay fuliso 120 maalmood ee ugu horeeya xukunkeeda sida uu xilligaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kula dardaarmay xukuumaddiisa dadka waxa inuu ballan qaado balamo waaweyn baynu qaadnay inuu xisbiga kulmiye ah barnaamij qurux badan oo dadku aamineen baynu samayn waxaan rabnaa in barnaamijkii la furfuro lagu koobnaaye oo 23 wasaaradood mid waliba qorshaheedii la baxdo oo ay u samayso sanad 6 bilood 3 bilood qorshaha ka dheegan barnaamijka xisbiga iyo NDP2 waxaynu u baahanahay 120 cisho hore maxaynu qaban karaa ee runa Dr. Saad Ali Shire wasiirka amuraha dibadda ee Somaliland ayaa sheegay kulankaasi wasiiradu ay isugu yimaadeen inay ahayd markii ugu horeysay ee Somaliland uu ka dhaco taasina ay sababtay wasiiradu inay isla jaan qaadaan waxay markii ugu horeysay saasoo kale wasiiradu isugu yimaadaan wax badan la farqeeyay waxyaabaha waddanka maanta hor yaala iyo mudnaanta sida loo kala siinayo heshiisna laga galay waxna laga soo kala qaatay waxaanu sameynay isbedel fara badan xagga wasaaradda marka runtii waxyaabo fara badan oo aanu isleenahay waxay keeni doonaan tayeen la tayeeyo wasaaradda oo la xiriira ballantii maalintii meeshan ka soo qaadanay ahayd dubahabeyn lagu sameeyo wasaaradda iyo istiraatiijiyadeeda Dr. Saad waxa uu sidoo kale sheegay diblomaasi ahaan Somaliland inay kor u kac samaysay wasaaradda amuraha dibadduna ay ka shaqaysay safarro soo dhaweyn sare lahaa oo madaxweynaha Somaliland uu ku tagay dalalka dariska ah ee Djibouti iyo Ethiopia madaxweynuhu 3 safar buu galay oo dibadda kii uu horeeyay Djibouti kii Addis Ababa iyo kan Imaaraadka saddexda uu galay kii Djibouti waa dogay oo safarkii ugu horeeyay madaxweynaha si fiican ma naloo qaabilay horta markii hore waan uga mahad celiyo Ismaaciil Umar Geeli iyo dawladda wanaagsan ay noo qaabileen kii Ethiopia waa dogay si loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Karbil Casba saddexdaba loo dhigay runtii si wanaagsan maxay waa loogu soo dhaweeyay waxa aan runtii kuwa muujinaya halkay Somaliland ay ka taagan tahay gobolka sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland waxa uu booqasho rasmi ah oo maalmo qaadatay uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta oo mashaariic si weyn looga hadalhayo geeska Afrika ku maalgelinaya dekada Berbera safarka ugu dambeeyay madaxweynuhu ku tagay Imaaraadka safar buu runtii si fiican u milgare loogu soo dhaweeyay wax badanna waa laga wada hadlay oo la xiriira danaha labada dal runtii waxyaabaha la qabtay markaad eegto waxay ahayn runtii 120 casho aad iyo aad mashquul aanu ahayn dawladda Somaliland ayaa waxay ku guuleysatay in dawladda Imaaraadka Carabta oo kamid ah kuwa ugu dhaqaalaha iyo saameynta badan dalalka Khaliijka Carabta inay aqbasho in baasaboorka Somaliland ay muwaadiniinta Somaliland ku tagaan wadankeeda arrinka baasaboorka runtii wuxuu la xiriiriyay heshiisyadii hore nu galay oo ay kamid ahaayeen inay u fududeeyaan suuqa shaqada dhalinyaradeena bilaa camalka maalintii dhawada madaxweynuhu tagana waxay qodobkaas kamid ah qodobadii uu kala hadlo ka codsaday marka hadda codsigii waa la soo ajiibay amniga gacanta ku haya baasaboorada waxa lagu wargeliyay in baasaboorka Somaliland ay ku daraan baasaboorada lagu soo gali karo wadanka marka imka farsamadii ayaa socota dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxa lagu tilmaamaa sirta kaliya ee Somaliland ay ku kasbatay indhaha caalamka
oo duniduna ay ku ammaantay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi oo waqti kooban xafiisyada joogtay waxay isku dubariday waajibaadka kaga aadan geedi socodka doorashada. xukuumadda qaybteedii waa ka diyaar miisaaniyadana waa loogu daray sad la socotaba doorashadii horena aad iyo aad bay xukuumadda uga qayb gashay kana aad iyo aad bay uga qayb geli doontaa madaxweynuhu dhowr jeer buu la shiray guddida doorashooyinka iyaguna barnaamijkoodii way isku dubariteen waxaan rajeynaynaa deeqbixiyaasha iyo saaxiibadeena caalamigu inay si uga qayb qaadan jireen uga qayb qaataan oo sidaana ay noogu dhacdo doorasho wanaagsan oo xor xalaal. nabadgelyada gudaha oo ah meesha uu ka farcamo horumarka dhammaantii waxaa si joogta alaamaha amniga iyo saraakiisha degmooyinka iyo goboladu ay sameeyeen tallaabooyin lagu soo qabtay mukhaadaraad gacan ku dhiiglayaal dilal geystay iyo muhaajiriin sharci darro ku soo galay Soomaaliland doonayayna inay ka sii gudbaan iyadoo gacanta kalena lagu hayay socodsiinta nidaamka dawladnimada. dhalinyaro nabadgelyo darro ka sameynaysa magaalooyinka waaweyn mindiya isku laynaysa mukhadaraadkii magaalooyinka aad iyo aad ugu isticmaalaysa taasna ciidanka booliisku dhammaan gobolada dalkoo dhan wuu ka hirgeliyey inay tallaabo xoog leh ay ka qaadaan saldhig booliisoo geedballaadh loo sameeyey. waxaa kale oo la qabtay khamri aad iyo aad u fara badan oo lagu qabtay gobolka Sool, gobolka Sanaag, gobolka Togdheer, gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Boorame iyo Gabiley intaba khamrigaasoo la wada gubay. gacan ku dhiiglayaasha intii imika qof ahaan wuxuu dilay oo 7 ah 2 mooyaane intii kale ciidamadeena booliisku way ku guuleysteen. arrintii nabadgelyada gobolka Saraar, degmada Caynaba, degmada Dareerweyne iyo Ceelafeen, gobolka Sanaag, degmada maxaan ku dhahdaayay Jiidali oo shaqaaqo muddo dhowr dhex taagneed oo dhaawac iyo dhimashaba sababay waa la soo wada afjaray. kii Jiidali waa la soo afjaray, kii Dareerweyne iyo Ceelafeenna waa la soo afjaray, ka Caynabana waa la soo afjaray. kii hore ee deegaanka Sool koonfurteeda ambaqaadkeediina maxaan ku dhahdaayay 120 cashaa lagu soo afjaray. shaqaaqadii ka dhacday maxaan ku dhahdaayay degmada Buuqoodle maxaan ku dhahdaayay meesha la yiraahdo Gocon Dhaale ee dalku ku dhacay na maxaan ku dhahdaayay waa lagu guuleystay in labadii codna la kala raro. xeer beegti arrintooda gacanta ku qabataana ay hadda u fadhido oo isla deegaanka. arrimaha shaqaaqada nabadgelyada ee la soo afjaray si laxaad la waxa uga qayb galay ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka Soomaaliland. dhinaca amniga iyo difaaca marka la eegana intii uu xilka hayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi militariga Soomaaliland waxa uu suura gashay inay gaadhaan deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool. halkan waxa jooga ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudanaya waajibkiisii qaran. wali xuduudeena waxaanu u jiraa in ka badan 70 kiiloomitir. wixii waajib dastuuriga u nafarayay sharciga constitution-keenu wali masaafada inta leeg baynu ka xignaa oo daaqal kaga jira xuduudaheena. dhulkii Soomaaliland oo xuduud ka dhaweyn ay jooga maanta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii hawsha adag ee qabteen ama ay u joogaan mar walba ay u heeganka ugu yihiin difaaca qaranka. caafimaadku waa halbowlaha nolosha. Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf wasiirka horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxa uu sheegay in looga fadhiyay inay hawlgeliyaan 24 xarumood oo caafimaad oo dalka oo dhana balse waxa uu sheegay inay u qabsoontay inay hawlgeliyaan oo ay dhisaan dayactirna ku sameeyaan 42 xarumood oo caafimaad taasoo 50% ka badan intii laga filayay inuu fuliyo 120 maalmood gudahood. 24kii MCH ee markii hore anaga qorshahayaga ahaa 21 ka shaqaysiina laakiin se waxa yeelanayay wanaaga inaanu 21 MCH oo kale aanu ka shaqaysiin oo markii hore aan suucan fuli shaqeynay wada shaqeynay 21 waxa ugu dambeysay oo imka farta laga qaaday Cali Ciise meel la yiraahdo oo gobolka Togdheer laakiin 21 kale oo aan shaqeyn jirin ayaa si wanaagsan u shaqeynaya. haddii la isu geeyo 24
يعني وقت MCH-du maanta waddanka u shaqeynaya weligeed inta halkaa may gaadhin waa ilaahay mahadii muddada yar ee 120 casho gudaheeda waxyaabo badan oo hoose way noo qabsoomeen waxa kale oo muhiim ah inuu noo hirgalay talaalkii ugu horeeyay aanu la kulanno oo ku soo beegmay 120 casho horeeyay qorshaha ku talgalkii talaalka aanu bilownay bisha 10keedii 22 noo dhamaaday wuxuu ahaa inaanu talaalo milyan iyo 100,000 oo caruur ah oo 10 jir ka yar waxaanu gaadhnay caruurtii la talaalay milyan iyo 4,50,000 iyo 504 ilmood caruura waxyaabo kale aanu qabanay waxaa ka mid ahaa inaanu joojinay dawada TB-da lagu iibiyo suuqa waxa aynaan garanayn dawadaas inay tii saxay tahay in kale in suuqa laynaga iibiyo waa mamnuuc waa dembi qofkii lagu qabtay iyo meeshii goobtii lagu qabtay lagu iibinayana waa mamnuuc waxaanu kaloo mamnuucnay 6 bilood oo ka soo socda inaan la furi karin lana dhisi karin goob caafimaad oo gaar loo leeyahay aqoon la'aani waa iftiin la'aane tacliintu waxay ka mid tahay meelaha culayska la saaray ee loo hawlgalay haddaba maxaa ka hirgalay ee hore looga dhaqaaqay halkii hore Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland ayaa muujinaya waxbarashada arrimaha uga hirgalay waxaana kowka in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay damaanad qaaday in arday kasta uu lacag la'aan ku heli doono buugaagta waxbarashada sidoo kalena xukuumaddu ay go'aamisay sanduuq la yiraahdo shaqada qaranka kaasi oo sahli kara in ardayda dugsiyada sare soo dhamaysta lagu faafiyo dalka oo dhan si ay tacliinta ugu gudbiyaan jiilalka soo kacaya dawladdu waxay ku talaabsatay in ay maal geliso agabka iyo qalabka wax lagu barto in dawladdu lacag 1,926,000 oo dollar ah ay gelinayso buugaagta ardadu wax ku barato ama wax looga dhigo dawladdu markaa waxay garatay inay maaliyad xoog la geliso oo miisaaniyadeeda qayb weyn oo kamid ah arinta ku kharash garayso oo lacag 2 milyan oo dollar ku dhow arday walba 7 buug ayaa loo iibinayaa guud ahaan marka la isu geeyo waxay noqonaysaa 1,120,000 oo buug lacagta ku baxaysaana lacag 2 milyan oo dollar ku dhow ayay noqonaysaa kan magaalada Hargeysa waxa iskuul weyn baa dhismihiisa ka socda oo qayb dhamaatay qaybtii kalena aan rajeynayna inaan dhaqso u dhamayno oo iskuul u yaraan dhowr boqol oo macallin markii walba lagu tababaro manhajkii waa noo diyaar oo dadkii tababari lahaa macallimiintu iyaguna waa noo diyaarsan yihiin biyuhu waa nolosha koobaad ee dadka iyo dunyada la'aantoodna aanay rafaad ka baxaynin noloshu sidaas awgeed Salmaan Yuusuf Cali Koore wasiirka horumarinta biyaha in 9 ceel ay ka hirgaliyeen magaalada xeebada Berbera ee gobolka Saaxil sidoo kalena gacanta dawladda ay ku soo celiyeen maamulka biyaha ee waddanka oo dhan taasoo ay dheer tahay in la furay dugsi lagu barto farsamada biyaha waxaanu Berbera ka sameyn waqtigii aanu joognay 9 ceel baanu isaga dabageynay oo ah ceelashan la yiraahdo riigagu qodaan sababtaanu saa u yeelayna wax kale ma ahayn Berberi waa meel kulul oo hadii biyo la waayo magaalada laga qaxayo waxa dhamaaday iskuulkii farsamada gacanta ee biyaha ee ay ku baranayaan ardaydu haday tahay matoorada haday tahay balambariska iyo tuubooyinka haday tahay soolarka oo runtii aad iyo aad ugu muhiim ah biyaha wasaaradda maamusha budgetka hadda waanu ku daray hay'adana waa naga caawiya waana hadda waxaan u maleeyaa groupkii saddexaad baa galay laakiin awal meel cilaab ay fadhiyeen hadda laakiin iskuul aad u qurux badan ayaa la dhisay oo qalabkiisina u dhanyahay annagoo ka duulaynaa buugga xisbiga ee siyaasadda wuxuu buuggu amrayaa in la sameeyo waaxda daraasaadka iyo dabagalka ilaha biyaha ee dalka isla markaana xafiiskani midba waxaan ku dhawaaqay waaxda waana waax shaqaysa haday tahay mid dhulka gudihiisa ku jirta iyo haday tahay mid dibadiisa qulqulaysa
wasaaradda horumarinta maaliyadda waa mid ka mid ah wasaaradaha ugu miisaanka culus ee xukuumadda Somaliland marka laga hadlayo waajibaadka ay ummadda u hayso. haddaba maxaa la taaban karaa ee ka hirgalay shaqooyinkii hor yaalay wasaaradda maaliyadda ee ay ahayd in wax laga qabto gaar ahaan dhinaca miisaaniyadda, shuruucda iyo wax ka beddelka nidaamka shaqada. waxaana arrintaasi sharaxaya Yuusuf Maxamed Cabdi, wasiirka horumarinta maaliyadda ee Somaliland. 120kii cisho qorshihii noo qorshaysnaa in aanu gaarno 80% waa gaarnay. wasaaradda maaliyadda markii aan imi qaabka wasaaradda maaliyaddu ay u taalo waxbaan ka bedelnay. waxaan ku soo kordhinay labada waaxood ee ah waaxda shaqaalaha iyo waaxda shuruucda. 25 sanana aanay lahayn wasaaradda maaliyaddu waaxda shuruucda. sidoo kale 120 cisho waxaan noo qorshaysnaa inaan miisaaniyadda qaranka diyaarino 2018 taasoo muddadeedii muddo dhaaf ahayd. alxamdulillah waan dhamaystirnay, waan diyaarinay, kulli baarlamaankana waa u gudbinay oo miisaaniyaddii 2018 oo dhammaystiran. miisaaniyaddii hore ee 2018 miisaaniyaddii hore ee 2017 waxay dheer tahay 30% mashaariicda horumarineed ee miisaaniyaddeena ku jira ee aan ahayn kharashaadka hawl socodsiinta waxay ka mid yihiin miisaaniyaddeena 34.5. waa iskuullo, waa cusbitaallo, waa dhaaman biyood, waa celal biyood, waa wadooyin, waa beero, waa waxyaabaha. miisaaniyaddan waxaa ku jira korodh aan u sameynay mushaharka ciidamada qaranka kala duwan oo ah 9.20%. korodh aan u sameynay macallimiinta oo isaguna 20% waxaa ka mid ah inaanu abuurnay inaanu sameyno gelinka dambe in la shaqeeyo. waxay bilaabayaan 2 duhurnimo ilaa 7 fiidnimo wadayaan. tacabka beeruhu waa tallaabada ugu mudan ee ummaduhu ay kaga ciil baxaan faqriga iyo gaajada. shacabka Somaliland oo xilliyadii ugu dambeeyay ka cabanaya sicir barar iyo cunno yaraan baaxad leh ayaa dadku ay isweydiin karaan maxaa qorshe iyo tallaabooyin uga hirgalay wasaaradda beeraha si loo wajaho cunno yaraanta loogana maarmo ku tiirsanaanta shixnadaha cunnada ee dibadda laga soo dhoofiyo. mudane Axmed Muumin Said, wasiirka horumarinta beeraha, ayaa faahfaahinaya maadaama uu soo maray inta badan dhulka beeralayda ah. dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn. wasaaradda beeruhu 120 cisho waxaanu ballan qaadnay oo inaanu sameyno ilaa 15,000 saacadood aan qodno. imika waxay ka socotaa oodweyne iyo beer labadaba imika qodaalka ka socdaa. waxaa la marayaa 50% bay qodaal ku socdaa si lacag la'aan shay ugu qodayna. waayo maanta Somaliland waxyaabaha imika wasaaradda intaan joogno qaso waxa kamid ah waxaanu furnay xafiiskii ay wasaaradda beeruhu ku yeelan lahayd gobolka Gabiley. waxa iyadna igu xigtay xafiis ugu weyn oo isaguna aan ka furnay magaalada Boorama oo iyadoo wax soo saarka beeraha aanu doonayno gobolada galbeedka oo iyaguna inta badan wax soo saarka ku caan baxaya oo 120 cisho wax qabadkayga wixii noogu jiray. isla runtii 120 maalmood wasiir walba qayb u qaatay, laakiin waxa Ilaahay maadiya intii aan qaatay iyo in ka badan ayaan qabtay. beeralaydu sida ay u soo saaraan tacab wax ku oola. wasaaradda beeruhu waxaa 120 maalmood gudahood beeralayda ay u qaybisay mashiinada beeraha lagu waraabiyo, siirkii ay beeri lahaayeen iyo qodaalka beeraha oo saacado badan dawladdu ay ka caawisay. waxa jiray meelaha gobolka saaxil kamid oo iyaguna aanu siinay oo aanu ka caawinay dhinaca shidaalada. runtii miisaaniyadda wasaaradda ma uguma jirin wax soo saar sanadkii hore oo waxay ahayd miisaaniyaddu aad bay u hooseysay, laakiin sanadkan waxay buugga kaga qoran tahay nabadgelyadu baa naga horeysa. taasina waa alxamdulillah baanu ku jirnaa. miisaaniyadduna way korodhay, waliba laban laab way miisaaniyaddu. sanadkan maanta haddaan cid kale ku filaan waayo raashinkan soo saarayo maxaabiista raashinka inaan soo saaro, haddaan kordhiyo inaan ciidamada raashinkooga 6 bilood ku filaado, haddana sanad ku filaan. marka aniga iyo wasaaraddiiba mas'uuliyadda maanta runtii nasaare aad bay weyn tahay. xoolaha iyo kalluunku waa khayraadka ugu ballaaran ee uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha Somaliland. taasina waxay kuu muujinaysaa inay muhiim tahay
in la daryeelo lana horumariyo awoodda ka faa'iidaysigooda. haddaba wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu maxay tallaabo qaaday 120 maalmood ee ay shaqeynaysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Yurub Abiib ayaa sheegtay in tallaabooyinka uu hirgalay inay ka mid tahay iyadoo la mamnuucay maraakiibta shisheeye ee kalluunka ka gurta xeebaha Somaliland xoolahana ay talaaleen. waxaan badda ka saarnay maraakiibtii iyo dooyihii sharci darrada ahaa badda xaalfinayay meel walba wax ka qaadanayay ayay waxay wasaaraddu ku guuleysatay inay gebigoodaba ka saarto badda. waxa aanu tallaabo ka qaadnay daaweynta iyo tallaalka xoolaha oo markaan u diraynay tiimam xoolaha tallaala oo xaaladooda la socda gobolada Somaliland oo dhan. waxaanu suurtagelinay in la sameeyo dhismaha deked lagu balaadhinayo berbera oo isla markaana kalluunka loo suurtageliyay. dhismaha iyo qalabaynta suuqa kalluunka ee Burco ayaa isaga laftiisana gacanta lagu hayaa iminka gabagaba ku dhow. dhismaha iyo qalabaynta xarunta baraf dhaliyaha ayaa iyada laftigeedu noo suurta gashay berbera isaguna iminka ka dhamaaday. waxaa noo suura galay 120 cisho dhismaha geerash lagu dayactirayo dooyaha berbera iyaga laftigooda iyo meelo kasta oo kalluunku ka jiro samayntooda. waxaa kaloo ay wasaaraddu ay bixisay 120 cisho aan joognay oo dadka shacabka iskaashatooyinka ka howlgala badaha khaasatan waliba gobolka saaxil aan ku wareejinay 7 dooyood oo ay xukuumaddu bixisay oo dadka iskaashatadii ay ku kalluumaysan doonaan. laas qoray lughaya iyo boorami oo iyaga laftigoodana laga furayo suuqii kalluunka. halkaasoo la geeyay barafdhaliyaashoodii waxqabadka xukuumadda 120 cisho noo qabsoomay ayay ka mid yihiin waxyaalahaas oo dhan. shacabweynaha reer Somaliland waxay aad uga warsugayaan arrimaha ku saabsan shidaal baadhista iyo macdanaha Somaliland ay qaniga ku tahay. wasiirka macdanta iyo tamarta Jaamac Xaaji Maxamuud Cigaal waxa uu sheegay 120 maalmood gudahood inay soo dhameystireen sahamintii shidaalka ay ka socotay gobolka Togdheer iyadoo ay ka soo baxeen calaamado rajo weyn muujinaya iyadoo sidoo kalena ay bilaabeen sahaminta shidaalka ee gobolka Saaxil. haddaan gaygayga qayto haddaan macdantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helay qaybsho. waxda shidaalka waxaanu dhammaystirnay oo soo afjarnay shaqo aanu ugu nimi oo socotay oo ah sahaminta shidaalka ee gobolada Saraar, Togdheer, Daadmareed ilaa iyo gobolka Hawd. mashruuca waanu soo dhammaystirnay baaritaankiisii hore. waa la qaaday dhaatadii waa la qaaday. waxaynu sugaynaa in muddo dhowr bilood oo 3-4 bilood gudahood lagu soo tarjumo wixii macluumaadka halka laga helay. waxa iyaduna aanu saxiixnay heshiis ah shidaal baadhis ama sahamin shidaal laga bilaabay bariga berbera. marka heshiiskii saxiixiisii iyo isafgaradkiisii iyo hawsha bilowgeedii intuba way hirgaleen. shirkadaha bilaabay sahaminta sameeyay qaar ka midii dee way hadleen jaraa'idiyay qabteen ay ku cadeynayaan in Somaliland dhawaan riig laga taagayo. Wadada shirkadani waxay baadhis ka samaysay Kurdistan waqooyiga Ciraaq. waxay leeyihiin wixii nooga muuqday Kurdistan baa nooga muuqda calaamadihii baa nooga muuqda Somaliland. 6 mashruuc oo tamarta cusboonaata ama solarka oo tamarta ay dhalinaysaa marka la isu geeyo ay tahay 1,700,000 oo kilowatt baa 6 magaalo laga hirgeliyay. waxaa ka mid ah magaalooyinka Baran, Sheekh, Gabiley, Burco, Buuhoodle iyo Boorame. Somaliland iyadoo ay ka taagan tahay shaqo la'aan dhalinyarada haysa ayaa haddana waxaa jira ajaanib tiro badan oo shaqooyin kala duwan ka haya Somaliland. wasiirka shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Somaliland Hinda Jaamac Xirsi waxay sheegtay 120 maalmood gudahood inay xaqiijiyeen tirada ajaanibta ka shaqeynaya gudaha Somaliland. waxaan noo qabsoomay inaanu diiwaan gelino dhammaan shaqaalaha ajnabiga ah ee ku sugan dalka Somaliland
kuwaas oo aanu dhammaantood rikoorkooda gacanta ku hayno shaqooyinka ay u joogaan cidda ay mas-uulka ka ah goobaha ay ku sugan yihiin intaba mar labaadka annagoo rikoorkooda ka duulaynaa aanu xogta aanu kasoo ururinay inaanu ogaano aqoomaha ay ku kala joogaan wakhtigan oo duruufo badan ay ku xeeran yihiin bulshada Somaliland ayaa wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Somaliland waxay ku dhiiratay inay kafaalo qaado nolosha qoysas danyara oo ku kala nool gobolada Somaliland kuwaas oo ay cusleeyeen duruufo nololeed oo ay la liiteen waxaana ay sheegtay qoysaskaasi ay gacanta ku dhigeen noloshooda inay u damaanad qaadeen masaariif joogta waxaanu caawinay masaariifna u qornay qoysas barakacayaal ku ahaa abaarihii dalka ka dhacay haysta caruur bugta oo cudurro ay saameeyeen qoysas iska dhan oo haysta 5 caruura ama 6 caruura oo 5taa qof kaliya uu ka caafimaad qabo kuwaas oo masaariif u qornay $200 bishii aanuna ku booqano bil kastaba marka ay dhamaato anagu aan u geyno oo aan iyagu soo doonan shaqaalaha dawladda Somaliland oo markii hore aan la ogeyn tiradooda rasmiga ah taasoo ay suuragal ahayd in hal qof oo kamid ah shaqaalaha dawladda uu mushahar ka qaato dhowr wasaaradood ayaa madaxweynaha Somaliland waxa uu daahfuray nidaam lagu tirinayo sidoo kalena lagu tayaynayo shaqaalaha dawladda hawshaasi oo ku soo dhamaatay muddo gaaraysa 70 maalmood war la helaa talo la helaa si loo tayeeyo waxa laga marmaan noqotay inaan soo tirino muddada 70 casha bay hay'adda shaqaalaha dawladdu bari ilaa galbeed waqooyi ilaa koonfur inta badka Soomaaliland leegayayba isku qaybisay si ay xogta dhabta shaqaalaha dawladdu soo hesho habka ugu casrisan baa lagu diiwaangeliyay waxa labeeyay maxay nu diiwaangelinayna ku faleen ma tiradoodu ma sugayna ma caagilo ma raadinayna ma inta aan shaqayno kaliya ma gol lahayn may laba ujeedo waaweyn baa ku hoos jiro ka koobaad waxa weeye in shaqaalaha xogtooda la soo helo tirintii baynu dhamayno xogtii aanu tirinta ka soo helnay baanu tayinta dhaxmarinayna qaar baan ogaanay in tababar u baahin qaar baan ogaanay in xoolahooda loo kordhiyaa tahay qaar baa meel fufo ku shaqeeya hawshaasi waxay ku soo dhamaatay si guul leh gobanimo leh waqtigeedina ku eeg xukuumadda cusub ee Somaliland ayaa waxa dhiirigelin weyn ay u muujisay haweenka in loo saaro fursadaha shaqada arintaas oo kamid ah mabaadiida madaxweyne Muuse Biixi shir gole wasiiro oo gudoominaya madaxweynaha Somaliland baa waxa lagu soo saaray baaq sheegaya in marka kaalmo shaqo ay soo banaanaadaan haweenka iyo hablaha aqooyahanka kaalmo gaar ah loo xiro oo loo xaseeyo si ay iyagu dhexdooda ugu tartamaan iyadoo laga jawaabayo baaqa ah kobcinta haweenka iyo isu soo gaarsiinta kaalimaha shaqo gaadiidka iyo jidadku waa kuwa ugu muhiimsan kaabayaasha dhaqaalaha ee dal walba waana furaha kobaca dhaqaalaha iyo isu socodka dadka iyo dunyada labadaba mudane Cabdilaahi Abubakar Cismaan wasiirka horumarinta jidadka ee Somaliland waxa uu barnaamijkani muujinta waxqabadka u sheegay inay u hirgaleen dhowr qodob oo muhiim ah waxaanu dib u bilownay wadadii Ceergaabo oo qorshuhuna yahay 40 kilomitir in la dhiso 10 kilomitir ugu horeeyay marka waxa weeyaan waa dhismeen hawsha labaad ee noo qabsoontay waxa weeyaan buuxintii wadada u dhaxaysa Hargeysa iyo Daarburuq oo iyaduna aan dhamaystirnay waxa kaloon la kaashanay hay'addan SDF si loo sugo badqabka gaadiidka loona yareeyo shidadka gaadiidka wasaaradda iyo hay'adda SDF waxay dhamaystireen 70 kilomitir oo ah in loo sameeyo waxa loo yaqaan road mark amba calaamada wadooyinka sida qofku u garan karo haadkiisina ku jiro taasoo sahlaysa fududeynaysa in shilal badan aanay wadada ka dhicin waxa kale oo aanu dardar gelinay dhamaystirka Irish bridge-ka abadweyne oo hay'addu ay gacanta ku haysay rajaynayna wiigan in insha Allah xariga laga jiri doono isla bridge-ka la yiraahdo Xayramadle iyo Kahood geel loo kor labadana taatiir baa lagu dhameeyay isla muddada 120 cisho sidoo kale waxa aanu dib loo bilaabay wadada isku xidha gobolka Selal iyo gobolka Awdal Boorama iyo Looyacado annagu gacan ka geysanay dadka deegaankuna fundraising amba
qaadhaan ay u ururiyeen oo iyadaa dib loo bilaabay. Waxaa kale oo aanu diiwaan gelinay gaadiidkii dowladda mashruucaasina waa gabagabo. Waxaa kaloo aanu furnay xafiisyadii wasaaraddu ku lahayd 6 gobol ee Somalilandba oo iminkaasi caadi wada shaqeynaya maadaama wasaaraddu markii hore ahayd wasaarad ka timid hay'ado la isku daray iyo wasaarad laga soo saaray. Marka alxamdulillaah iminka wixii ka dambeeya 120 cisho waxay si toos ah goboladoo dhan uga howlgeli doonaa wasaaradda isuduwayaasheedii iyo howlwadeenadii ee gobolada iyo degmooyinka. haddii aan la nashqadaynin dhulka oo aan la kala qorshaynin degsiimooyinka iyo daaqsinka iyo qaybaha kale ee dhulka way adag tahay in la helo jidad muhiima. jid la'aanta ayaa caqabadihiisa waxaa la garowsadaa marka ay dhacaan masiibooyinka dabiiciga ah sida dabka iyo duufaanta. cabdirashiid xaaji ducaale qambi oo ah wasiirka howlaha guud ee dhulka ee Somaliland waxa uu sharaxaad ka bixiyay wixii uu qabsoomay. iyadoo aan dawladdu bil jirin ayaa waxa golaha wasiirada go'aan madaxweynuhu gudoominaya laga gaaray in dhulku 3 bilood 4 bilood xiran yahay inaan dhul la qorsheyn karin. dhulka waxaan u sameeynay gobolada badankooda kormeerayaal aan wasaaradda qoray oo dhulka kormeera wixii danguuda iyo meelaha la qorsheynayo iyo inay ogaadaan. wasaaraddu waxay shaqo weyn ka qabatay degmada Wajaale oo imika muddo 15 casha uu ka socday mashruuc magaalada lagu baneynayo. waxay ahayd Wajaale saad ogtiin way gubatay meel la maro ma lahayn meel dabdamis maro ma lahayn bilic iyo eegid magaaladii ma jirin. waxaa loo soo wareegayay meelaha kiiloomitir ka soo wareegisay. waxaanu banaynay 130 wado oo ta ugu yar konton tahay ilaa 1500 mitir wada ah. lacag 100,000 ku dhow ku baxday. lacagta badideeda waxaa bixisay madaxtooyada. wadada Qorlugud iyo u dhaxaysa Buuhoodle waa 45 kilomitir. 45 kilomitir 8 sanadood tagay lama marin. wadada 8 sanadood lama marin. colaadihii kalshaale ayaa xiray. wadaduna waaba oodantay oo waxa ka baxay dhir. wadadiina waa la furay oo ilaa hadda baabuurta si nabadgelyo ah bay u socotaa. raasiga berbera sidii madaxweynuhu u xiray ee loo joojiyay arrinkii ka jiray iyo dhulkii la bixiyay sidii dawladdu ula wareegtay buu ku socday. wax dambe oo ka soo yeedhayna ma jiraan. sidaasuna ku dhammaaday. wasaaradda howlaha guud ee guryeyntu waxay soo saartay go'aan cad oo sheegaya inaanay cidina fulin karin mashaariicda dhismayaasha ee dawladda loo dhisayo iyadoo aan lala socodsiinin wasaaradda howlaha guud. taas oo markii hore aan dhici jirin. dawladdu waxay go'aamisay xukuumadda Somaliland dhismo kasta oo dawladda loo dhisayo in la soo maro wasaaradda howlaha guud. waana go'aan dawladeed ama dhismaha ahaado ama dayactir ha ahaade. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha muddadii xukuumaddu ay shaqeynaysay waxa uu suura gashay in Hargeysa lagu qabto marathon caalami ah oo ay ka soo qayb galeen orodyahanada Jaaniba iyo boqolaal dhalinyaro Somaliland. orodkaasi oo ka koobnaa 2 qaybood oo kala ahaa orodka 10 kilomitir iyo midka 42 kilomitir oo ku guuleystay orodyahan u dhashay waddanka UK. waxay ahayd markii ugu horeysay waa inoo yimaadaan 24 nin oo ajnabi ah oo u socda inay ku ordaan Somaliland oo ka kala yimi daafaha dunyada. waxaa kaloo dhacay orodkii marathonka ahaa oo ahaa ka ujeedadiisa iyo magaciisa iyo loo bixiyey Somaliland Marathon. marathonku waa 42 kilomitir saa wada taqaana. ifankaasoo ifan aada u sareeya oo aada u wanaagsan buu ahaa. sidoo kale waxaa Somaliland socdaal ku yimi madaxa xiriirka kubadda cagta waddanka Ghana oo sidoo kale ah ku xigeenka madaxa ururka kubadda cagta qaaradda Afrika ee CAF. waxaan ku soo casuunay gudoomiyaha kubadda cagta president of football Ghana oo isla markaana vice president of CAF. way arkeen iyagoo laftoodu baahiyaha ka jira garoomadeena. dhalinyarada oo ah xoogga lagu tashanayo waxaa loo sameeyay sanduuq dhaqaale oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo halabuurkooda iyo himilada ay ka leeyihiin nolosha. unemploymentka iyo shaqo la'aanta in dadka lagaga saaro in laga dhiirigeliyo oo laga maalgeliyo dhalinyarada hal abuurka ay doonayaan inay ku samaystaan
wax business ah inay bayskii u noqoto ama seed money ay ku bilaabi lahaayeen waa sanduuq aad iyo aad loogu baahan yahay. sidoo kale orodyahanno u dhashay Somaliland ayaa dalka Djibouti waxay kaga qayb galeen marathon caalami ah iyadoo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Yuusuf Maxamed Mirabos uu goobjoog ahaa madasha orodyahanada Somaliland ay kaga qayb galeen marathonkaasi. dhanka tiknoolajiyada iyo farsamada casriga ah marka la eegana xafiisyada dowladda Somaliland waxaa markii ugu horeysay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu ay u hindistay nidaamka afka qalaad loo yaqaan teleconference kaasi oo saamaxaya in mas'uuliyiinta dowladdu ay ku wada hadlaan hab maqal iyo muuqaal ah iyagoo ku kala sugan xafiisyadooda sida uu sheegay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Cabdiwali Suufi Maxamed oo hadlay markii mashruucaasi uu daahfuray madaxweyne xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil. waxaan maanta halkan u joognaa inuu daahfurno mashruuca in la isku xidho qaab maqal iyo muuqaal ah laamaha dawladda oo afar wasaaradood ay isku xidhan yihiin imika oo si live wada hadlayaan. waxa kale oo halkan u taaganahay inaanu dib u furno adeegii boosaha oo aan ku bilaabayno adeega boosaha laamaha dawladda. sidoo kale Somaliland waxa ay mamnuucday furaha internetka ee Soomaaliya ee sumadiisu ay tahay .so iyadoo shabakadaha nidaamkaasi isticmaalayna loo qabtay waqti ay kaga guuraan. cimilada adduunka oo isbedel weyn muujisay sanadihii ugu dambeeyay deegaanada Somaliland waa laga dareemay saameynta arrintaasi gaar ahaan xaalufka iyo roob la'aanta. kumanaan geed ayaa la beeray, dhaamam ayaa laga hirgeliyay deegaanada qaar, sidoo kale duurjoog ayaa laga badbaadiyay ugaarsato si khaldan uga faa'iideysanaysay. xeerkaas waxa weeyaan kaymaha iyo ugaadha marka kayntiisa loo ilaalinaya kayntiina waxa weeyaan maxaa laga shidaya waa dhuxul kaymihii waxay ku soconayaan waa dhuxul marka inaan dhuxushiina yareyno dhinacan kalena soo saaro wixii dhuxusha bedelayay taasina way noo hirgasho dhuxushii la dagaalanka dhuxusha hadii jeer dadka waxaanu imika dhahnaa shita dhuxusha ah garan waaga oo daaya dhirta kale xaggan kalena shooladihii oo kala wada nooca ayaanu iyada qudheeda de suuqii marka la keeno cashuur dhaaf u sameynaa markaanu aragnay wadankeenu kuba dhaqaaqay xabadiina oo meel gashaba de meel ku jirtaba in laga soo saaro dalkii ku dhaqaaqay dhalinyaradu ku dhaqaaqday cid kastaba ku dhaqaaqday runtii waan xoogaanu saaray waanu ku soo qabanay imika dad baanu ku xukunay at least horta inta imika noo maxkamadu runtii way nala shaqeeyeen qaybta amniguna uu nala shaqeeyay labaduba ilaahay baa mahadlay war way nala shaqeeyeen marka dad baa maanta u xidhan waxaan ku guuleysanay kale inaanu maaragtay dhisno dhaamam waaweyn oo laba dhaamam waaweyn oo midna laga dhisay gobolka Hawd midna laga dhisay Ceelfweyn labadiba waxay qaadayaan 13,000 oo kilomitir oo biyo ah oo bacdi la dhigay ayay qaadayaan marka labadaasina runtii si wanaagsan oo guula ayay iyaguna ku dhamaadeen dhareyntii waxa weeyaan iyaduna 40,000 dhowr iyo 40,000 oo geed waanu beeray way noo hirgaleen wax badan waanu imika bixinay intii waan bixinaynay oo dadka qaadanayay oo free baa lagu siiyaa. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo tixgelin siinaya daryeelka deegaanka ayaa markii ugu horeysay taariikhda waxa uu digrata madaxweyne ku asteeyay in maalinta 15 Abriil sanad walba ay noqoto maalinta dhirta iyadoo maalintaasi looga faa'iideysan karo in la beero kumanaan geed. سعيد حسن عبد الله ماريها دكده Somaliland oo ahaa mas'uulkii qaranka ku duugay mashruuca malaayiinta dollar ku kacaya ee lagu maalgelinayo dekada Berbera waxa uu sharaxaad ka bixinayaa waxyaabaha uu qabsoomay 120 maalmood ee shaqada ay waday xukuumadda Somaliland. waxyaabaha noo qabsoomay muddadan inaanu keenay fogliftiyo waaweyn oo qaadaya laba container iyo baabuurtii dhaadheera oo iyaguna 12 ahaayoo la saaray liftiyada containerska oo iyaguna ku soo kordhay waxa kaloo aan ku soo kordhinay imka muddadii tower lightskii waaweynaa ee habeenkii baxayay maadaama dekadu ay shaqeyso 24 saacadood waxa kaloo aan ku soo kordhinay oo soo socday iyaguna waa tag boatkii
maraakiibta soo xidhayay iyo pilot boatkii oo iyagana iminka turkiga kasoo dhaqaaqay insha allahu muddadii gaabneed ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan xilka hayay ayay intaasna noo qabsoontay dekadu habeenkii lama soo xidhi jirin maraakiibta iyagana qalabkoodii waanu soo iibinay habeen iyo maalinba in maraakiibta lasoo xidho waa waxyaabaha waaweyn ee noo qabsoomay shaqaalaha la tababaray waxaa la geeyey Thailand dalka Thailand waa la soo dhisayaa capacity-goodii imika 5 baa tagay way yimaadeen 5 kale haddana aanu dirnay berbera corridor waa important dhawaan waanagii booqashada ku tagnay wajaale triport baa iyadana laga sameynayaa dhulkii waa soo istaagnay de waxaan jecel lahay in ummaddu u diyaar garowdo inkastoo ay muhiim tahay isku tashiga gudaha haddana ma jiro dal adduunka ka mid ah oo kalidii wax istira oo isku filaada isagoo aan kaashanin adduunyada kale taasi waxay muujinaysaa in maalgashiga shisheeyuhu uu caalamka oo dhan muhiim ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa markii ugu horeysay taariikhda Somaliland uu magacaabay wasaarad gaar u ah hawlaha maalgashiga si ay u soo jiidato maalqabeennada caalamka Maxamed Axmed Caawad wasiirka maalgashiga ayaa tilmaamay in adduunyadu ay danaynayso khayraadka Somaliland adduunka badana shirkadaha jira qiimeeya khataraha maalgashi ee dawladaha credit rating waxa la yiraahdo ay sameeyaan khataraha dalalkaas uu leeyahay qiimeyn bay ku sameeyaan marka shirkadaha xiriir oo ka howlgalnaysan xiriir loo yeelan lahayn ay Somaliland u heli lahayd qiimeynteedii u gaarayd oo taas hadaynu ku guuleysano sumcadda Somaliland xagga maalgashiga iyo xagga kala dawladnimada kor u qaadi doonto waxay danaynayaan kalluunkeena waxay danaynayaan macdanteena waxay danaynayaan runtii inay muxuu warshadaheena sawirka kala duwan oo danaynayaan waxay danaynayaan beeraheena waxay danaynayaan kaabiyaasheena dhaqaale kala duwan dhammaantood waxa noo socda wada hadallo qaarkoodna isfahan hordhac ayaan wada gaarnay laakiin wali ma soo bandhigin dawladda hoose ee magaalada Hargeysa oo kab dhaqaale ka helaysa dawladda dhexe waxa ay suuro gelisay in ku dhow 12 kiiloomitir oo wadooyina iyo xarumo loogu talagalay dabdamiska iyo sariibad laga hirgeliyay magaalada Hargeysa waxaana ay daafurtay mashruuc dib loogu habeenayo caasimadda Hargeysa iyo xarunta dawladda hoose waxyaabaha noo qabsoomay waxa kamid ah waxa noo dhigmay 12 kiiloomitir oo ah wado asfal ah oo ah wadada ay nooca ay Soomaalidu taqaan hooga iyo 2 kiiloomitir oo ah tiimaan walka ahayd ee lagu dhisay waxa imka dhamays ku jira oo nu fulinay 120 cashood gudahoog saldhigii dabdamiska ee degmada Ibrahim Koodbuur waxa isagana dhismihiisii bilowday oo uu socdaa aanu kharashkiisina bixinay ka degmada Maxamuud Haybe iskuulka Maxamed Axmed Cali laga dhisi doono laga dhisay imka hadda dhismihiisu bilaabmay iyo ka New Yorkeysa oo laga dhisi doono maslaxa agtiisa sariibadii degmada Axmed Dagax ayaa iyaduna imka dhamaatay muddada 120 cisho waxa jira mashruuca ay naga maalgelinayso hay'adda Mareykanka GSOL oo ah mashruuc maalgashiga oo lagu dhisi doono xaruntii dawladda hoose iyo mashruuca GIS-ka oo noqonaysa markii koowaad ee Hargeysa inay number wada yeelato oo address yeelato address-kaas oo ay ku wada shaqeyn doonaan kow dawladda hoose oo fulinaysa laydhka biyaha telefoonada wasaaradda maaliyadda intaas oo dhanna ay hadhow tole ka faa'iideystayaasha mashruuca noqon doonaan iyo dawladda hoose oo noqota e-government oo noqoto processka ay maraan faylasha oo dhan iyo shaqada dawladda hoose mid noqonaysa computerized mashruucaas oo madaxweynuhuna daafuray golaha deegaankuna isagoo miisaaniyadda qaybta fayskii koowaad ee maalgashiga ee sanadkani ku jiro ay ansixiyeen qaxoontiga magangelyada soo biday Somaliland iyo kuwa ku barakacay gudaha dalka ayaa muhiimad weyn waxay u tahay xukuumadda Somaliland ee jirta 120 maalmood waxaana loo sameeyay hay'ad maareysa qaxootiga iyo dadka gudaha ku barakacay waxa ugu horeeyay wuxuu ahaa dhismaha soo aragteen ee imka socda waa intii aan joogay baa la bilaabay waa wax qabadkii ugu horeeya waxyaalaha kale ee qabsoomay waxa kamid ah hay'adaha la shaqeeya hay'adda la shaqeeya ama UN ha noqdaan ama international ha noqdaan ama local ha noqdaan shirista bajoogan yeelanay oo runtii aad moodaysa hay'ad walba sayid doonaysa inuu shaqeynayso iyagana waxaan ku soo riday wadada wada shaqeynta sida anagu aanu doonayna ama siyaasadeeda inay ku shaqeeyaan baahida anaga inay weydiiyaan waxaan wax u qaybinay 6998 qoys oo barakacyaala
waxaanu qaabilay soo noqdayaal baa la yidhaahdaa waa dadka reer somaliland dibadda ka soo noqday yaman oo kale 900 oo qoys baa ka soo noqday waanu qaabilay waxaa jira dad qaxoonti ah oo dalkeena yara jooga dadka anagu waxaanu diiwaan gelinay 18,345 qof intaanu joognay dad ilaa 5,000 gaaraya way noqonayaan waxyaalahaanu qabanay waxa ka mid ah dad barakacyaal ah oo reer somaliland ah oo dowladaha hoose dhul siiyeen dhulkii anaguna waxaanu ka bixinay lacagtii cashuurta hay-adaheena qaarkood way u dhiseen howlaha ugu muhiimsan ee ay hirgelisay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa ka mid ah arrimaha guduhu waxaa gacanta ay ku dhigeen 5 ka mid ah 7 gacan ku dhiigle oo dilal geystay waxaa la soo afjaray shaqaaqooyin ka jira gobolada bari ee Somaliland arrimaha dibadda ayaa si weyn uga shaqeysay 3 safar oo madaxweynuhu ku tagay dalalka Itoobiya, Djibouti iyo Imaaraadka Carabta oo aqbalay baasaboorka Somaliland militariga Somaliland waxa markii ugu horeysay ay gaareen deegaanka Tukaraq gobolka Sool halkaas oo aan hore loo gaarin wasaaradda caafimaadka waxay howlgelisay 42 xarumood oo caafimaad waxaana ay tallaashay in ka badan 1 milyan oo carruur ah wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo markii ugu horeysay hirgelisay in ardayda lacag la'aan lagu siiyo buugaagta cilmiga wasaaradda biyaha ayaa 9 ceel waxay ka qoday duleedka Berbera 120 maalmood gudahood wasaaradda maaliyadda ayaa diyaarisay miisaaniyadda qaranka oo 30% ka badan tii hore iyadoo ciidamada iyo macallimiintana loo kordhiyay mushaharka wasaaradda beeruhuna waxaa qodaal lacag la'aan ay ku caawisay beeralayda xukuumaddu waxay hirgelisay sanduuqa shaqada qaranka iyo sanduuqa dhalinyarada oo ay ku shubtay $200,000 wasaaradda deegaankuna waxay muddadani ay hirgelisay 2 dhaam oo ay ka qoday Beligubadle iyo Ceelaf Weyn macdantiya tamarta ayaa soo gabagabaysay sahamintii shidaalka ee gobolka Togdheer waxaana ay bilowday sahamin kale oo laga sameeyo gobolka Saaxil hay'adda shaqaaluhu waxa ay dhameystirtay telekoobka dhammaan shaqaalaha dawladda wasaaradda gaadiidka iyo jidadka ayaa 10 kiiloomitir oo laamiga ku kordhisay wadada Ceerigaabo 120 maalmood gudahood wasaaradda howlaha guud iyo dhulka waxa ay nidaamisay qorshe magaaleedka Wajaale oo dhawaan uu ka kacay dab xoogan oo khasaare geystay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu waxay xeebaha Somaliland ka mamnuucday maraakiibta shisheeye ee kalluunka xaalufisa wasaaradda dhalinta iyo ciyaaruhuna waxay suuro gelisay marathon caalami ah oo ay ka qayb galeen 100 dhalinyaro ah wasaaradda shaqaduna waxay diiwaan gelisay dhammaan ajaanibta waddanka jooga iyo shaqooyinka ay hayaan wasaaradaha aan ka dhex muuqan waxqabadka 120 maalmood waxay ku soo bixi doonaan hab qoraal ah oo lagu muujin doono buugga waxqabadka